بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta halkan waxaan ku duubaynaa muuqaal kooban oo aan kaga hadlayno isticmaalka application-ka cilmi waa application ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada Puntland waxaana laga helayaa dhammaan casharrada dugsiyada hoose dhexe iyo sare manhajka wasaaradda waxbarashada Puntland iyagoo ah saddexda version Somali version, English version iyo Arabic version saddexdaba way ku diyaarsan yihiin marka muuqaalkeenan waxaan ku qaabaa dhigaynaa isticmaalka application-ka cilmi oo runtii application faa'iido badan u leh ardayda Soomaaliyeed waxaan u baahanahay marka ugu horeysa inaan mobile internet-ka furno kadibna aan soo furno Play Store-ka si aan ula soo degno application-ka kadib waxaan qoraynaa cilmi oo ah magaca application-kan cilmi kadibna search baan riixaynaa application-ku baaraya wuxuu soo qaban doonaa application-ka waayahay application-ki waa kan dabcan waxaa halkaa idinka muuqda oo application-kan astaan u ah loogada wasaaradda waxbarashada Puntland application-ka markuu kuu soo qabto batoonkaas hadda ay ku qoran tahay open waxaa ku qornaan doona install hadduusan mobilekaaga application-ka ku jirin markaad install garayso kadib ayaa waxaad riixi doontaa buttonkan hadda kuu muuqda oo ah open buttonkaa guji marka open alright wuu soo furayaa waayahay application-ka hadduu inoo furan yahay kadib waxaan dooranaynaa luuqadda aan rabno inaan ku isticmaalno ama application-kan isku fahmno dabcan luuqadan halkan ka muuqato maaha ma qusayso casharrada aad daawan doonto luuqaday ku baxayaan maaha waa interface-ka ama luuqadda aad isku fahmaysaan adiga iyo application-kan marka waxaan dooranayaa luuqadda English-ka waxaan riixayaa English kadibna calaamadda hoose qoraalka hoose sign in baan riixaynaa sign in wareejinayaa wuxuu hadda inoo soo saari doonaa khaanad loo baahan yahay inaad ku qorto telephone number-ka aad ku diiwaangelinaysaa application-kan waayahay khaanadda waa tan halka waxaa ku qoraysaa telephone number-kaaga waayahay markaan qoray kadib telefoonka waxaan riixaynaa calaamadda next wuxuu inoo soo qoray check your SMS dabcan lambarkii aad qortay ayaa la xaqiijinayaa inuu yahay nambarkaagii fariin baa loo diray fariintaa 6 jiifar baa ku qoran 6daa jiifar waxaa la rabaa inaad ku qorto halkan si loo hubiyo nambarkan inuu yahay lambarkaagii markaad qortana waxaad riixdaa submit check your SMS wuxuu hubinayaa fariintaa qortay markaa kadib waxaa inoo soo baxaya form waa kan formkan oo la rabo inaan buuxbuuxino meesha ay ku qoran tahay first name waxaad ku qoraysaa magacaaga for example waxaan qortay magacaygaan qortay kadib waxaan riixaynaa next halkay ku qoran tahay last name magaca aabe baad qoraysaa alright Xasan next baan riixaynaa halkan grade-ka ay ku qoran tahay fasalka aad tahay dooro wey grade waa fasalka ama heerka aad marayso waxaan dooranayaa grade 8 fasalka 8aad alright kadibna waxaan leenahay genderkii jinsiga lab iyo dhadig waxaan doortay male hoos u deg region gobolka aan joogo bari district degmada Boosaaso baan qorayaa Boosaaso waayo next riix time of access xilligaad isticmaalayso ma gelin horaa mise waa gelin dambe waa inaad doorataa waxaan isticmaalayaa morning shift gelinka horaan isticmaalayaa previous school name magaca iskuulkaagii hore dabcan waxaan qoranayaa iskuulkayga al-imaam ashaafici magaca iskuulkeenaan qoraynaa iyagoo halka waxay ula jeedaan iskuulkii hore aad kasoo bedelatay sanadkii hore dabcan iskuulkan aad joogtay sanadkan iskuulkan kii un baa qoraysaa date of birth xilliga dhalashada maadaama aynu dooranay fasal 8aad da macquulaan siinaynaa for example 2001 arday dhashay sax oo 8aad waa possible
halkan ay ku qoran tahay favorite subject soo riix maadooyinka aad xiisayso danayso languages baan dooranaya tusaale ahaan adigu maths ama science dooro languages baan doortay luqadaha hoos u deg halkan waa optional laakiin buuxinayna iyadoo optional ah waa school name magaca iskuulkaaga imaam shaafici magaca iskuulkeena halka ku qoranay imaam shaafici kadibna waxaan riixaynaa next waayahay profile baa halkaa ka muuqda ma student baa tahay arday miyaa tahay macallin miyaa tahay waalid miyaa tahay mise maamul waxbarashaa tahay ardaynimaan dooranaya waxaan ahay arday kadibna next sidaa waxaa ku samaysmay profile-keeni baa soo buuxinay halkan waa option profile picture haddii aad halkaa saarayso aad u baahan tahay haddii kale skip baan oranaynaa waa ka boodaynaa uma baahnin waxaan riixaynaa batoonka hoose oo ku qoran tahay skip ka bood sidaa waxaa inoogu samaysmay akoon aynu ka dhex furanay applicationka cilmi waxaynu u baahannahay marka inaan koorsooyinkii kusoo darsanno casharadii inaan kusoo darsanno add course baan riixnay kadib halkaan aan joognaa casharadii wey meeshaan waxaa halkaa ku aragtaan af soomaali fasalka 8aad hoos u sii deg soomaali dugsi sare iyo baa isku jira iyo biology iyo waa aragtaan business studies anigu waxaan rabaa marka ay dadka keliyaan rabaa halkaa kaloo 8 ay ku qorantaan doortay kadibna halkan waxaan ku arkaa casharadii ay dadka xisaabta iyo English mathematics English ICT mathematics science English science English hadana social studies awalwalin iyagoo xisaab carabi kulli waa arkaysaa xisaabtan waa Soomaali marka ijtimaaciyaad waa kan social kiyo carabi tarbiya maadada tarbiyadana waa taa riyaadiyad xisaabta taran tusaalahan soo furaynaa ad baan riixaynaa kadibna halkan waxaan ku arkaynaa jabtarada casharada aan ay ka kooban tahay yani maadada xisaabta jabtarada ku jira halkaa ad baynu xisaabta baan soo gelinay okay chapter 1 lesson 1 chapter 1 lesson 2 chapter 1 lesson 3 casharka koobaad baan shiday tusaalahan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ابنائي الطلبه احنا في دروسنا الرياضيات للصف الثامن الاعدادي وناخذ اليوم ان شاء الله الوحده الاولى بدرس الاول قراءه الاعداد وسناخذ بهذا الدرس ان شاء الله الاعداد التي تصل حتى الملايين فهاريس لوغاريتم تعيين العمليات. الدرس الاول درسيga koowaad ardayga waxaan ku baran doonaa insha Allah haduu yiraahdo tirooyinka markii la tiro waaye haddana eegna marka maadada culuumta ad baan riixaynaa kadib jabtaradii waa kuwan ku soo darso halka waxaan ku aragnaa marka maadada culuumta jabtarka afraad casharka koobaad baan gujiyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أرضنا فصل كاسديداد كسو دوادا ما دد علومك ما أنت وحن قادر إن عدو إلهي نوفض ذيو الوحدة الرابعة النباتات وحن أركرنا نباتاتكو وعدة لقد تيرسي هاي حق عنتادا haddii xayawaan la yahay iyo haddii insaan la yahayba waa cidda lagu tiirsan yahay oo waa muntijka asaasiga ah cashirkeena koowaad waa tahay intaasaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan oo ujeedkiisu ahaa inaan ku sharaxno isticmaalka applicationka cilmi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.